بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا صوماليد ميلad joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaanyeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, inta dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka, diinta, dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob waa magacii la oran jiray Black Lion oo aan idiri hadda ka hor waan ka hadli doonaa, baan bal taariikhdiisa ka sheekeynaya iyo sidoo uu ku soo galay. qodobka labaad, khudbadii madaxweynaha ee Jumcada Sheikh Xasan iyo masaajidkii Villa Soomaaliya iyadana kelmad baan ka oranaya. wiilkan dhalinyarada ah oo la yiraahdo wariyaha ah oo la Cabsalaan Germany oo la handadayo loo dhaaranayana kelmad baan ka oranaya. waa markii waade 1935 ayaa Talyaanigu weerar ku qaaday Ethiopia. Ethiopia waxa la dalka kaliya aan weligood la gumaysan, adigu 10 cisho meelahaas ayuu Talyaanigu gumaystay. 10ka cishana taariikhdooda way ka jaraan oo kalandarka adduunka 10 bay ka dambeeyaan maalmood. wadankaas Afrikaanka ah oo aan la gumaysan xilliga Talyaanigu waa weeraray. wuxuu kaalmaysanayay 6,000 oo Soomaali ah oo ciidan oo infantry ah dhulka mara, ciidanka dhulka lugta. ciidamadaasi Ethiopia ciidankeedii hubaysnaa gebi ahaanba waa tirtireen. guul khariban bay ka gaareen oo caadi ahayn. maxaa dhacday? waxaa kacay kacdoon shacab, dhalinyaro ay abaabushay arday ah, waxay la baxeen Black Lion, libaaxa madow. libaaxa caalamka jooga timihiisu ama dhogortiisu waa dahab brown ah, laakiin libaaxa Ethiopia jooga timihiisu madow baa ku jira, aad u madow yihiin. libaaxa madow bay la baxeen. ardaydaasi dagaalkii ay qaadeen oo ugu horeeyay aad bay ugu guuleysteen. Talyaanigana waa baabi'iyeen, ciidamadii u watay Soomaalida iyo Talyaaniga isugu jiray way baabi'iyeen, way ka adkaadeen. kadib Talyaanigu waa soo hubeeyay, diyaaradu aad u soo qaatay, nimankaas iyagana waa la tirtiray. magacaasi marka wuxuu noqday magac baxay oo wax alla wixii ay Ethiopia amaanayso ay ula baxdo. dadka qoraayada ah oo Nobelka ah waxay yiraahdaan Black Lions. askaraha iyo ciidamadooda dagaalada gala oo commandosta iyo kuwa khatarta ah iyo tababarka fiican qaba Black Lions. kafeega xataa ay soo saareen Black Lions, waxay amaanayaan oo dhan waxay hormud uga dhigaan magacaas raaciya. connotationka marka ama masalada kullamaan oo ku hoos jirta waxay tahay nacayb ay u qabaan Soomaalida oo Talyaaniga daba dhilif u ahayd oo uga hiilisay Talyaaniga meeshii iyaga Afrikaana ay la safan lahaayeen, uga hiiliyay baa ku hoos lamaan libaaxa madow. Talyaanigii iyo Ingiriiskii aynu daba dhilifka u ahayn wuxuu ina ku abaalmariyay dhulkeenni inuu iyaga siiyo. daba dhilifku siisa abaalkiisu waa dharbaaxo, faa'iido male. daba dhilifnimadu sharaf male. kelmadan hadda ka hadlaynana taasay ku tacalluqdaa. Xasan Sheikh bilowgii dawladdiisa isagoo ordaya oo leh meel walbaan la heshiinaya buu Masar isu tuuray. markaas aasiisi wuxuu ka dhamaystay Nile-ku inuu khalad yahay. dhismaha laga dhisay dhaamka ay dhisanayaan oo nimanka la yiraahdo Ethiopiaanku ay ka dhisteen wadankooda oo wabiga Nile ay saareen dhaamka ay ka dhalinayaan korontada inuu khalad yahay. maalinta waan ka hadlay, waxaan sheegay Xasan Sheikh inay khalad tahay inuu Masar tago, inay khalad tahay inuu labada wadan u kala hiiliyo, inuu dhexdhexaad ka noqdo. maanta waa heshiis. maanta oo aan hadlayno labadii wadan waa heshiiyeen. soo kuma fiicnayn taladii uu qaatay Farmaajo inuu qaato, inuu khibrad ka qaato madaxweynihii isaga ka horreeyay. soo kuma fiicnayn. soo inaad rukuuc iyo sujuud ku jirtid kama wanaagsana inaad ka fiirsatid tallaabadaada. marka hore inaad ka fiirsatid oo aadan degdegin. dadka caalamkana heshiis wax ahi ma jiraan. mutual respect iyo mutual interest inaa wada guulaysataan iyo inaa is ixtiraamtaan baa lagu wada noolaadaa. laysma adoonsado, madaxana laysuma foororiyo. marka maxaa dhacday? waad garanaysaan afhayeenkii Cali Kaar oo aan waa misgaraynay runtii warbixin naga siin jiray Villa Soomaaliya inuu shutdown ku galo arrinta iyada darteed. markuu kala hadlay oo hadaladii saas dheh ma garanaysa. maxaa ka dhacday?
madaxweynuhu isku day Ethiopia prime minister keeda inuu la kulmo 5 jeer in la diiday in la kulmo 5 jeer حتى isagoo magaalada jooga Addis Ababa oo transit ku maray Mareykan u socda inuu ka dhoofo Djibouti aaday si uu san u arag markuu maqlay inuu imaanayo buu isna Djibouti aaday mawjeeda 5 jeer in loo 3 jeer in wafdiye direen oo saddexdaba iyagoo farmaran la soo celiyay waxaad garanaysaa taariikhdaas maxaa ka dhashay waxa ka dhashay shirkii igad ee lagu qabtay kadib waatay kulmeen waxyaabo badan baa handadaad badan baa jirta isu boolxooftayn baa jirta weerar baa jira iyo weerar celis waa tii aad garanaysaan madaxweynaha markii lala kulmayey hees baa loo daaray ninkaas Keenay Gardaran hees ay ku jiri jirtay ayaa loo daaray waxaa ku xigtay March sanadkan shirkii lagu qabtay Ethiopia waxaa laga soo saaray go'aankaas waxay cinwaan uga dhigeen Can Somalia's frontline states eradicate so-called cross-border terrorism before ATMIS exits in 2024? ATMIS intaysan bixin 24 wadamada frontline-ka loo bixiyay waa Ethiopia iyo Kenya ciidankoodu inta soo galo ma ka takhalusi karaa terrorismka saddexda xuduudoodba isaga gudbay halkaas si fiican u fiirso waa Macawisley Black Lions operationkaas waxaa loo bixiyay oo la isla qaatay Black Lions madaxweynuhuna waa soo xambaaray ma lagu khasbay ma la handaday ma waxbuusan ka aqoon oo taariikhduusan garanayn asagay u taala war anu intaa warka ma hayo laakiin wuu soo xambaaray wuu soo qaatay waxaa ku xigtay in lagu bilaabay weerar iyo baabi'in iyo tirtirid dagaalkii argagixisada oo ka bilowday Hiiraan dagaalkaasi wuu qaangaaray wuu najaxay waana sababta keentay inay ka masayraan nimanka la yiraahdo Ethiopia wuxuuna ku najaxay qaabkii ay iyagu waagi Talyaani kaga adkaadeen qaab la mid ah Macawisley shacabkii oo kacay wuxuu qabsaday meel kasta rag baa soo baxay raggii caanka noqday oo iconka u noqday halgankaas hoggaankiisa Jeyte Biixi iyo Odawaa waa la isdhaafiyey hawshiina waa la joojiyey waxa la yaabtaan waa la joojiyey wax ka hadlaya al-shabaab baa dagaal ka qabanay magaala ka qabsanay ma jirto waxa lagu bilaabay iyagii inay hub boobaan oo ay ciidamadii baabi'iyaan sidii exactly Talyaanigu uu u galay ma garanaysaa marka colaadii 6,000 oo nin ee halkaa tagtay dagaalka gashay ayay Ethiopia qabtaa waxaa loo bixiyay barnaamijkaas Black Lion June 2023 bishii hore madaxweynuhu wuxuu tagay golaha ammaanka waataan ka hadalnay sax maaha waa ceeb imaaraad baa iska wata barnaamijkaas oo raba iyagu inay ku campaign gareeyaan madaxweyne ma tago meeshaas ambassadorka ku filan Abukar Baale iyo haddii ay ugu sarreyso wasiir xataa prime ministerka lama geeyo ilaa inay wax khatar oo emergency jiraan mooye meeshii buu tagay naagta Ingiriiska oo ka hadlaysa Catriona Lane Special Representative of Secretary General for Somalia and the head of United Nations Mission in Somalia UNSOM UN Somalia missionka naagta madaxda ka waxa ay tiri waxaan ku travel gareeyay Soomaaliya meelo badan waxa ay muuqata Soomaaliya inay gaartay tremendous progress that Somalia has made in state peace building Soomaaliya inay ka gaartay guulo fiican dhismaha dawladnimo iyo nabadeed inay meel fiican ka gaartay markaasay soo waday al-shabaabkii khatar weyn weeye al-shabaabku laakiin operationkii Macawisleyda ayaa degraded al-shabaab wuu baabi'iyey hoos buu u dhigay tabartoodii laakiin wali waa significant threat Operation Black Lion Somali-led initiative is due to start ingiriiska wuxuu yiri gabadhaas ingiriiska ay waxay tiri oo booskii ninkii xirnaa fadhida operationka Black Lion waa in la bilaabaa waa waqtigiisii baa la joogaa waa in la bilaabaa markaysa Black Lion madaxweynuhuna meeshuu ka yiri Operation Black Lion baan bilaabaynaa anaga iyo wadamada aan dariska nahay oo ma garanaysaa nala galaya su'aal baa idin weydiinaya Soomaalidu waxay ka dagaalamayeen AMISOM hanala ka saaro 20 iyo dhowr sano
hadda markii ninkii madaxweynaha xasan ka horreeyay uu saxiixay in la saaro 2024 askariga ugu dambeeya xasan in laga soo dhamaysto inuu kuwa hor la keeno doraadna aad arkayseen William Ruto oo leh ciidamada iyada Kenya ka bixi mayaan dalka maxaa laga wadaa marka Black Lions inay iyagu guushi qaataan sumcaddii la dagaalanka argagixisada inay iyagu qaataan magacaas ay iyagu qaataan kow meeshaas ay qabsadaan oo ay ka qabsadaan al-shabaabkana ka bixi mayaan waa joogayaan waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq hor leh oo ay ku casriyeynayaan ciidamadoodii badda iyo maraakiibtoodii badda oo ay raadsanayaan hadda ay rabaan inay soo gataanba doonyo iyo maraakiib badeed oo hor leh badna male waa landlocked country xasan sheekh ma khaladkii balandarkii political balandarkii uu galay oo Sisi uu isu tuuray buu ku maslaxayaa waddanka in ciidan ajnabiya la soo geliyo oo weligeed aan ka bixin iskuna daya inay qabsadaan magacaas hadday ku horeystaan laba faa'iido u leeyahay iyaga waa maroo way ka aarsadeen Soomaalidii dabadhiifka ahayd oo 6 kun ahayd oo Talyaaniga la socotay waa ka aargoosteen waa marka labaad rajay ka qabaan inay badda qabsadaan oo ay sheegtaan in iyagu leeyihiin dhulkan Soomaaliya oo dhan iyaga sheegtay inay leeyihiin inay qabsadaan oo marka hadday ku qabsadaan wax ka fujiya la waayo qodobkaas intaasan ka oranay waa khalad siyaasadeed waa siyaasad xumo waa waxaan la garanayn meel u socoto absolutely dhibaatayna ku tahay Soomaalida kelmadda intaasan ka oranay qodobka labaad madaxweynuhu wuxuu ka hadlay khudbadiisii jimcada oo uu tacliiqin jiray sidiisii caadada ahayd wuxuu yiri musuqan la dirirayna culimadooy kaca oo musuqan la dirira marka uu mikrofoonka madaxweynuhu haysto qaadkii baa degaya saacadaas qaadkii baa degaya waa musuq madaxweynaha ku jira isaga lacagtiisa qaadanaya khasnada dawladda ku dhicmayso isaga iyo koox gangis ah oo political gangsters ay ku wada yihiin oo ninkii diihal qabeenaha uu kamid yahay Roble liibaan shuluq kooxdoodaas ayaa isla qaadata Djibouti baa ku jirta koox marka musuqa aniga ii daaya idinku ha dhicnina aniga ii daaya tayda kaliya saxa dadka intooda kale hal la qabto وهذا أن هوري الشيء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إلهي وحو إنا بري السنة إنا أدوك change by example or lead by example وحليرا أدوك إنا ودنك كوه قامسيد إنا أدوك مصفى إسكديس مركاسي الشقين يسا علمادو هدي كهر لين وآترها كهر لين وكهر لين كاقاتك وحتى الصعودة إيا كي حاجك وأديك يروبو آتسميسين لبدا قضب هدي أدتك الصومالية كاقن عسيد مدهوين ومصو قاس آد كاكينتان جواب كاكينتان umadu waydin dhageysa warkaagu waa soconaya dadka ku dhageysanaya oo dhan hoostay kaaga qoslaya ilayeen faan badan af waa kane maylku aami xasan oo dawlad lagu maamulo af iyo hadal af ku xoog la noqoto af ku xoog leh musuq aniga ii daayay idinku iska daayay idina ka yeelmayso macnaha message gadmaysa maaha nabigaas calayhi salaam shucayb wuxuu leeyahay idin daba mari maayo wixii aan idin ka reebay marka hadaa ka reebtid dadka musuqa adna aad wadid qaadku waa joogto waa every day marka khudbada akhriis inuu dagaya oo aad lacag dhacaysa dawladdu leedahay ummadda Soomaaliyeed leedahay baad dhacaysa aakhiraad ka sheekeynaysa marka qaarkood waxa isleeyahay ninkan maskaxdiisa meesha process garaysa runta iyo beenta kala saarta ba isku yaacday oo aan waxba kala garanayn intaasaan isagana ka oranaya kelmadda iigu dambaysa wiil yar oo dhalinyaro ah oo la yiraahdo Absalaan Germany oo intay garaaceen Hargeysa oo dhibaato u geysteen ka cararay oo reerkaas u dhashay ba hadda waxa la soo saaray qoladii hoolay tiimkiisii mid Zakariya la yiraahdo oo meelaha orordayay oo mar xildhibaan u tartamay oo waayay ayaa waxay soo saareen codad ay leeyihiin hal la dilo xamar buu joogaa xaafadaas degan hal la dilo ninka ingiriiska ka hadlaya waa la dacweyn karaa Absalaan Germany waxaan u sheegayaa iyo asxaabtiisa iyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ninka in dacwo lagu ogo hadalkiisana la geeyo booliiska la geeyo waa tareed waa dambi weyn xabsi baa lagu galaa waa qodob Muuse Bixi markuu ka soo cararay in Muqdisho loogu dhaaranayo nooc waalida kamida wey nooc waalida kamida oo qofkii Soomaaliga ah hadda wuxuu leeyahay yarkii waxa banaadaya laascanood banaad maxaa yeelay wuxuu ka hadlay laascanood kelmadda marka waxay ku xiran tahay ninka xukuma World Health Organization hay'adda caafimaadka adduunka ayaa wuxuu cambaareeyay duqeynta soo laalaabatay ee ay u geysanayso laascaanood isbitaalkeeda iyo shaybaarka laabka ay u geysanayso
maamulka Somaliland iyo biixi ayuu cambaarayay waxaa keenay marka qoraalada iyo hadallada ninkan dhalinyarada ah iyo labada qof oo kale ay sheegeen oo mid yahay Bakayle midna yahay Terra ay kaga soo horjeedaan waxay muujiyeen wadaniyad Soomaalinimo inay ka koreen qabyaalad in tolkooda hadduu khaldan yahay ay dhihi karaan waad khaldantihiin marka in la yiraahdo waa la laynaya iyaga oo kuwa u hadla af u ah hadal u ah facebookyada gabadh ka qaylisa oo garanaysa u ah musabixi af u ah oo yani halkaa kasoo dhaaranaysa iyo midkaas Zakariya leeyahay iyo nin Ingiriiska joogo lacag la ururinayo $10,000 oo lagu dilo ninka inta dad gaangiisa lacag la siilay dila arrintaas waa dambi Xasan Sheekh hadda musuq iyo dulmi la dagaalamaysid wiilkaas Muqdisho jooga waxa uu dhaaranayaan Muqdisho jooga Zakariya Muqdisho kula jooga shaqa ka qabo ninka qabo hal xiro maxkamada la saaro wiilkaasna naftiisa laga badbaadiyo ay rabaan inay dilaan waxa lagu dilayaa maxay tahay Soomaalinimada duulaan lagu yahay reerkaaga hadda ka soo horjeesatid oo tiraahdo reerkaygu masaladan waa ku khaldan yahay ya weerar baa lagu qaaday wiilashaas waxay ka hadleen halgankaas laascaanood ka socda iyo duulaanka dulmiga ah oo gardarrada ah oo la xuduuda Talyaanigu bixiyay Ingiriisku bixiyaan soo xireyna la leeyahay bay ka soo horjeesteen intaas lagu diraya laakiin waxaan iyaga u sheegayaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayankusu fil ard fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan taad xoortu way tagi doontaa way qallalayaan way iska tagayaan dadka waxa anfacaya baa haraya idinka haraya nadiifka dadka aba haraya wadaniyada haraysa Soomaalinimada haraysa iyadana guuleysanaysa waana laga baxaya insha Allah musuq iyo dawlad khariban iyo dawlad dabadhilifa iyo wax baaba'san oo aan vision lahayn aragti dibadda ah dal lagu maamulo waxa waa ka baxayna insha Allah taala waxaynu u gudbaynaa muwaadinku inuu qiimo yeesho macna yeesho tala yeesho wadankana isagu yeesho cid ajnabiyana uusan uga amar qaadan dalkiisa baynu gaaraynaa biidnillahi taala wali waxa u xiran gabar dhalinyaro ah oo aan arkayay iyadana bishaaro banday la yiraahdo xabsi ay ku jirtaa maxay ku xiran tahay freedom of speech democracy buu sheeganaya musabix maxaa democracy ka galay dadkii buu leeyahay waa dhiigyac gacmuhu dhiig ku leeyahay aqliga dhiig buu ku leeyahay waxa wixii iga hor yimaada hal la xiro hal la dilo iyaga ka dambeeya qadiyadan hadda wiilka yarka lagu beegsanayo Soomaaliya jooga marka yarkaasna ilaahay ha badbaadiyo gabadhaasna Allah ka soo furdaamiyo sidaasay yani afduub iyo ugu hayaan iyo cadaadis cidii hadasha oo ka hortimaada aragtidooda iyo fikirkooda meel kasta wadankoo dhan ilaahay ummadda ha badbaadiyo intaas aan oranaya billahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh